heesta ugu horeysa ee barnaamijka isla markaana ay ku dheeli doonto Aamin Alfa waxa ay noqonaysaa Xaliimo Gobaad talo Xaliim sidee buu dhashaa Aamin Alfa kaliya ma soo bandhigi doonto qaab ciyaareedka dumarka ee waxay inoo haysaa qaab ciyaareedka ragga in soo bandhigto ilaa in qafanaan barnaamijkan gaarka ah ee daawadayaasha kala socdaan Cabdi Askari 2 ad ku soo bandhigi doonta ilaa hadda waqtiga aad uu nagu yaryahay waxa uu soo talgalay ilaa Afrikaan ka waran markii laga soo gudbo dumarkii inaad qaab ciyaareedkooda aad keento raggii sidee bay kuugu sahlanaat ragii dumar caadi ilaa macala wax kasta caadi ilaa inuu koobiyo waa keeno deesha socodka wax kasta garsooraha ugu weyn barnaamijkan daawadayaal waa adinka barnaamijkan gaarka ah ayaan ku jirnaa aniguna kordaha karkay cashugu uu igu kordho igu soo kacayo igu laba kaxalee Aamin waxa aad cajaa'ib ila ah qaabka lugaha aad habba meel aad u dhigayso muusigana casriga waxa tumay musician Cabdiwahaab Cantarnaaji fookalkan codka quruxda badan waxa duubay Caamir Zaki Caamir ربي دشيدين تودي جاي هم دلو حديو دور سماتها يا 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 جيب حوبات ربي دشيدين تودي جاي هم دلو حديو دور سماتها horay waxaad u arki jirtaa ama u daawo jirtay fanaaniinta heesahooda oo koobi lagu sameynayo maanta waxaan ku hayaa qaab ciyaareedka fanaaniinta oo koobi lagu sameynayo waa barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay daawadayaasha ku taxan YouTube channelka Cabdi Askari 2 inay nagula baashaanaan waxaan barnaamijkaasi maanta aan ka diyaarinay isla markaana halka ay la fadhida oo marti ah Aamin Alfa oo iyada soo bandhigi doonto ilaa ay dhowr fanaan qaab ciyaareedkooda barnaamijkan daawadayaal wuxuu si toos ah ka imanayaa YouTube channel Cabdi Askari 2 aniga oo Bashaare Maxamuud ayaa barnaamijka halkaan kala socodsiinaysa wada jirka kamarada barnaamijka waa Maxamed iyo Kaafi waxaan daawadayaal barnaamijkan qaybiisa hore ayaan guda galeynaa in Aamin barnaamijka ku soo dhawow waa dhaw walaashay Bashaare in Aaminay dadka waxa ay la yaabeen in qaabka barnaamijkan soo bandhigi doono إلين هي سمعت قاعدة سدوا فنانة متين سنة داودياش وشيء بل كورن قاب كان أديك أركض لي سو فنانين تأكل بيني سو لا أنت إلا يتسوي ودي لا يرانت هذا يا ولد تسوي ولا جنجر أي سقطها هذا وحكست ولا جنجر وين قرت وقت أنت إلا يكون قاعدتها فنان ليش يسألكوا بيس وقت يوم ما قاعدت كل مرة تعركوا عنو كوبي وياي فنانين تقولن ميات كوبيسا مثل فنانين أديك تغير قوة أو كل فنانين تغير أيها كوبيا هاي واحد علم شيء سنة وانقرت كو كلاني فنانين تكلا هيست وكوبيا كل وكين كرا أرنت حسد مدن أيا داوة وحى أي تهاي Aamin Alfa kaliya ma soo bandhigi doonto qaab ciyaareedka dumarka ee waxay inoo haysaa qaab ciyaareedka ragga in soo bandhigto ilaa in qafanaan barnaamijkan gaarka ah ee daawadayaasha kala socdaan Cabdi Askari 2 ad ku soo bandhigi doonta ilaa hadda waqtiga aad uu nagu yaryahay waxa uu soo talgalay ilaa Afrikaan in fanaaniintaas magacyadooda dad noo xusto waxaa kamid ah Najibaal Fayaad taageero Xaliimo Gobaad كل سنة فرحي كويرة وأفرت فنان وياي سدون تبرنامج كداودياش يوصل رعان وحنوه الرئيسيننا أو إذا صوب بنقول دونا داودة هيستوه رئيس برنامج كإسلام كان يكون لي دونتو من ألف وحنا قلنا ساحة للجبات ترى حليم سيدي بوديشة
qaabkii u dhashay xaliimo Qaabkii waxay u bedelantahay fanaaniinta kale waxay ugu bedelan tahay qaab gooni ah oo ciyaarta haye meelaha ugu badan akshinada ka bixiso haddaad noo tilmaanto dhanka madaxa waan gartay saas markaas waayahay waxba daawadayaasha warka ayaanu ka caajisin aamina ayaan waxaa u shidi doonaa heesta xaliimo gabaad waa heystay heestaasi aad ku dheeri doonto heesi far badan ee qaadaa xaliimo gabaad ku caawiya waa hagaag daawada yaan war idinku daalin markaana waa heystay ku caawi halkaan iyo DJ-ga iyo qaab ciyaareedka aamina alfa idinka ayaa garsooraha ugu weyn ee barnaamijka ah daawadayaal daawadayaal waan filayaa in aad soo xasuusteen ciyaartii xaliimo gabaad maadaama halkan ay ka matalaysay aamin alfa in aamin ay bal ka waran marka aad dheelaysay maxaad dareemaysay in xaliimo ay ka dhex guuxaysay dadka sawiranayaan ina ahay baa isku mid waayahay
qaabka xaliime u dheelaysa inta badan waad keentay yaa kugu dhiirigeliyo ku yidhi aamina waad samayn kartaa qorshaha noocaan ah fanaaniinta qaab ciyaareedkooda waxaa igu dhiirigelisay walaashay aniga isma ogeynba inaan saas dhan u samayn karo dadka la koobiyin karo barnaamijka meesha ugu xiisaha badan ayaa daawaday wuxuu uu yahay maadaama qof dumara ay tahay aamina alfa waxa ay soo bandhigaysaa qaab ciyaareedka ragga sida hordhac barnaamijka idinkugu sheegay bal ka waran markii laga soo gudbo dumarkii inaad qaab ciyaareedkooda aad keento raggii sidee bay kuugu sahlanaatay raggii dumar caadi iliyay macala ruux kasta caadi iliyay inaan koobiyeeyo waa keeno dheesha socodka wax kasta wax dhibi u qaata mala waxaan saaraynaa markaan shib alfa iyo aamino koobigeeda kadibna idinka ayaa macalina garsooraha ugu weyn barnaamijkana daawadayaal waa idinka barnaamijkeena gaarka ahaa ayaan ku jirnaa dib ayaan iskugu soo noqonaynaa
kalsoon oon ula kaciya kas u dayacan kodabaad isiri kasba oo hanee fursad kale isii kolba ruuxayuu qofku qaawaye kurbada mara la kaca kufaa kolba ruuxayuu qofku qaawaye kurbada mara la kaca kufaa kalmadiyo ora kuma koobi karo sidan ku tabu kalgacayl dhabay nafta ku qabtaa kalmadiyo ora kuma koobi karo sidan ku tabu kalgacayl dhabay nafta ku qabtaa samriye kuu soo noqode xabiibi xabiibi waan kugu gafee ku jeer raalli noqo kama samriye kuu soo noqode xabiibi xabiibi waan kugu gafee ku jeer raalli noqo kama samriye kuu soo noqode xabiibi xabiibi waan kugu gafee ku jeer raalli noqo kama samrine kuu soo noqode xabiibi xabiibi waan kugu gafee ku jeer raalli noqo kama samrine kuu soo noqode xabiibi xabiibi waan kugu gafee ku jeer raalli noqo kama samrine kuu soo noqode xabiibi xabiibi waan kugu gafee ku jeer raalli noqo kama samrine kuu soo noqode حبيبي حبيبي يا حبيبي وانكوك بيك وجرب المخلوق أنا وحقات عجائب إلى إيه قابك لغة حبة ميل أدو ديجيس dad badan ayaa waxay sawiranayaa najiib oo halka taagan balka war mideen talaga najiib laftirkiisa kugu qaadat wallahi najiib wax badan ay uma qaadan عافيصاب يوم قاطر نجيب عليه فنانين بدن وعلى تلك دولتي سطيلو waxaad sheegtay fanaaniinta gudaha Soomaaliya oo kaliya inaad ku biyeelin caalamka actariinta waaweyn yaa kamid ah dadka aad ku biyeyso waxa kamid ah Hirit waayahay hay wabadika dheesh looga haray waxa talka waxa uu si fiican ah dadka dawladda meelahaas jira waa ajaanibka deeshooda u keeni karo dadkaas ku si fiican aslee waxaan daawadayaal wali waxaan ku jirnaa qaybta dhexe ee barnaamijkan gaarka ah waxaana barnaamijkan ugu talagalnay isla markaana nagula caweyn doono daawadayaasha gaarka ah ee ku xiran bartan Cabdi Askari Tube